بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxyaabo kale aad ka daawataan Raj Sports TV waa maalinimo sabtiya taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 12ka bisha 6 ee June sanada 2021 qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya tababari hore ee Jala Rossi oo ku dhow shaqada Tottenham inuu ka bedelo tababari shaqada laga eriyay ee Jose Mourinho Arsenalna waxay wada hadallo kula jiraan daafac Brighton ka tirsana ee qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan ku jiri doona qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad kaga boga doontaan waxa ku jiri doona daafac Real Madrid ee Sergio Ramos oo naadiga Sevilla ku dhow ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan ka mid noqonaya qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal soo kale aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona Paris Saint-Germain waxay ku dhow yihiin golaha AC Milan iyo qaranka Talyaaniga Gianluca Donnarumma qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal soo kale aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Danny Rose daafaca reer England waxa uu ku dhow yahay inuu caaga dhigto horyaalka heerka labaad naadiga ciyaartay ee Watford kadib markii uu iskaga tagay Tottenham qodobadaasi iyo qodobo kale oo ayaa barnaamijka muuqaalka ciyaaraha kaga boga doontaan oo ku jiraan kulamada Euro Talyaaniga oo guulo ku furtay bilaabashada tartanka qaramada Yurub oo kulankii daafuritaanka ee Gruda Stade Olympic ay ku ciyaareen kulamada caawa ee Russia iyo ka kala dhici doona Azerbaijan groupka A iyo groupka B kulamo ka tirsan oo caawa tartanka Euro ka jira ayaa qodobada barnaamijka saaxiibayaal ka mid noqonaya saacadaha geeska Afrika laga daawanayo aniga xasan cabdilaahi barnaamijka idin saaran halkaan idin kala socodsiin oo aan mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Raj Sports TV intaasi daawadayaal waxay ahayn qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Raj Sports TV markaan waxa gudagalaynaa qodobada barnaamijka oo dhameystiran waxaan ku bilaabayaa naadiga Tottenham Hotspur oo raadinayay tababaro cusub tan iyo markii shaqada laga eriyay Jose Mourinho tababari hore ee naadiga Jala Rossi ayaa ku dhawaa shaqada Tottenham inuu ka bedelo Jose Mourinho Vazesco oo ka tagay naadiga Roma ayaa haatan ku dhow Paulo Vazesco oo shaqada Tottenham oo 2 sano oo qandaraas ay u aqbalay tababaraha reer Talyaani Tottenham idoo madaxweyne Dani Levy oo Tottenhamna ay haatan isku afgarteen tababarahaasi 2 xilli ciyaareed qandaraas la gaaray Tottenham Telegraph ay ku waramaysaa in haatan tababaraha reer Talyaani oo u doolay Tottenham Hotspur Stadium si loo dhameystiro heshiiska Tottenham oo la gaaray dhinaca kalena Arsenal ayaa waxay wada hadallo kula jiraan daafaca reer England iyo Brighton Benoit oo 23 sano jir majalada The Guardian laga leeyahay waxay ku waramaysaa in Arsenal ay Brighton wada hadallo horumar labada dhinac ay ka sameeyeen kula jiraan Brighton iyaga oo daneynaya in Benoit oo 23 sano jir reer England ka oo qaab ciyaareed wacan ku qaatay Brighton ciyaareedkii soo idlaaday in ay la soo dhaqaaqaan dhinaca kalena Paris Saint-Germain ayaa ku dhawaa in heshiis baax horta ay kula soo wareegaan Gianluca Donnarumma oo 22 sano jir golayaha Azzurri iyo AC Milan ayaa diidan qandaraas dheeraad oo siiyo AC Milan waxaana haatan golayaha oo gabagabo ku dhow yahay qandaraaska oo kula jiro naadiga Rossoneri laguna naasay AC Milan agaasimihi hore ee AC Milan haatan agaasima Paris Saint-Germain Leonardo ayaa ka shaqeynaya qorshaha Gianluca Donnarumma ee kula soo seexanayaan PSG ayaa dhawaan ka dulqaadeen ciyaaryahanka reer Netherlands ee Jorginho Wijnaldum Borograna waxaana agaasimaha ciyaaraha ee PSG Leonardo wada qorshe PSG lagu xoojinayo xilaareedka soo aadan iyadoo Mauricio Pochettino maamulaha reer Argentina ee PSG
12 sano qandaraaskiisa lagu kordhiyey waxaana haatan PSG xilli horeba ay suuqa kala wareega ay ka wadaan dukaameysi waxaana marka loo eego xidigaha Back Differences oo kusoo biiriyay agaasimaha ciyaaraha ee Paris Saint-Germain Leonardo. dhinaca kalena Arsenal ayaa waxay wada hadalo kula jiraan ciyaaryahanka reer Talyaani ee Luca Toni. ciyaaryahankan ayaa waxdara ka dhigay Realka dalka Talyaani gaar ahaan Zazulu 23 sano jirkan weerarka ka ciyaara ayaa lala xiriirinayaa Emirates iyo tababar Mikel Arteta ayaa doonaya in ciyaaryahankani oo la soo dhaqaaqo idoo mustaqbalka ninka reer Faransa Alexander Lacazette ee Arsenal aan la hubina. Mikel Arteta ayaa doonaya inuu dhiso koox u loolami karta xilaareedka soo aadan koobab waxaana haatan dhowr xidiga tababara oo ku daray xidiga oo ka diray falay Emirates. Granit Xhaka oo reer Switzerland ayaa ku dhow Roma inuu ku biiro kadib markii labada koox isku afgarteen qiimaha ciyaaryahanka oo ku dhaqaaqayo waxaana haatan Arsenal ee u dhaqaaqeen Zazulu ciyaaryahanka ka tirsan weerarka ciyaaraya reer Talyaani ee Emmanuel Locatelli oo 23 sano jira. Sky Sport Italia waxay ku waramaysaa in Zazulu Arsenal ee wada hadalada ugu dambeeyay ku jiraan oo ku aadana mustaqbalka ninka reer Talyaani ee weerarka ciyaare ee Emmanuel Locatelli. dhinaca kalena islaamura Arsenal ayaan ku guda jirnaaye Arsenal ee Brighton waxay ka xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Mali ee Bazuma. ciyaaryahanka qadka dhexe Brighton kaga ciyaara ee reer Mali Bazuma ay wada hadalo kula jiraan inkastoo loolan ay kala kulmayaan Liverpool oo kamid ah kooxaha daneynaya ciyaaryahanka. Liverpool iyo Arsenal ayaa ciyaaryahankaasi kooxaha adigiisa doonaya waxaana majalada The Guardian ay leeyahay ku waramaysaa in Arsenal haatan ay naadiga hogaaminaya loolanka lagu jiro Bazuma oo qadka dhexe ee kubadsameynta kaga ciyaara Brighton of Albion. dhanka kalena Chelsea ayaa ku biireen raacdada loogu jiro qadka dhexe ee Spain iyo Atletico Nicosia. 26 sano jirkan ayaa shaac ka qaadin oo ka dhaqaaqay Wanda Metropolitano xilli Manchester United ay naadigu u cadcad ciyaaryahankaas inay gacanta ku dhigaan. Atletico qadkooda dhexe ayaa haatan kooxaha reer England ay isku baacsanayaan inay gacanta ku soo dhigaan adeegiisa. tababaraha Chelsea maamula ee reer Germany Thomas Tuchel ayaa doonaya in Nicosia uu ka dul qaado Manchester United. majalada Marquee laga leeyahay waxay ku waramaysaa in labada koox ee reer England haatan hardanka ugu jiraan Zaula ee Chelsea ay ku horeeyaan iyagoo Chelsea dhawaan Roman Abramovich adoon lacag gaari 200 oo lacagta Guinea sterling-na loo gacan geliyay tababaraha Germany ee Chelsea maamule Thomas Tuchel oo dhowr ciyaartooy tababarahaasi la doonay inuu ku soo iibsado oo ku xoojiyo Chelsea. ku guuleystayaasha Champions League ayaana haatan ku biireen raacdada loogu jiro Nicosia oo Manchester United bartilmaameedka koobaad ee daaqadu ee tababaraha reer Norway ee Man U maamule oo Nagoya Solskjaer. dhinaca kalena Sevilla ayaa ballanqaad u sameeyay daafaca 35 sano jirka ee Real Madrid gudubka ee Sergio Ramos. Sevilla ayaa 5 sano oo qandaraas waxay u ballanqaadeen ciyaaryahanka reer Spain ee Sergio Ramos iyagoo haatan ciyaaryahankaasi wada hadalo kula jira Sevilla. Real Madrid iyo Ramos ayaa isku mari lahaa qorshaha qandaraas kordhinta ee ciyaaryahanka reer Spain ee Sergio Ramos. Ramos ayaa dalbanaya qandaraas 3 sano halka Real Madridna ay doonayaan in ciyaaryahanka 35 sano jirka ee hal sano qandaraaskiisa oo 12 bilood ay ku kordhiyaan. naadigiisa hore Sevilla oo leeliyo tababari hore ee Real Madrid iyo qaranka Spain Juan Lopetegui ayaana doonaya in Sevilla uu ku soo celiyo Sergio Ramos. dhinaca kalena Boolishka ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaaray Bayern Munich oo 32 sano jir Robert Lewandowski waxa wada hadal kula jira wakiiladiisa ee kula jira Manchester City. boolishkii ciyaaryahankooda ayaa dhawaan shaac ka qaadin oo daneynaya tartan cusub oo tijaabiyo waxaana loo fasirtay ciyaaryahanka oo diyaariyeen oo ka dhaqaaqo Allianz Arena iyo Bayern Munich. Manchester United City tababarooda Pep Guardiola ayaa raadinaya weeraryahan kadib markii Sergio Ramos aan iraadey Sergio Aguero oo ka dhaqaaqay Etihad isagoo 2 sano oo heshiisna la gaaray bola garana. أنا هاتنا بيب غوارديولا ودنيا عيريان ويرر كعيارة أنا سلا ما فلان مجلد بيلي جرماني لقلي يا شاعك قادين وكيل كعيريان كا وهذا كل جرمان جسر سيتي روبرت ليفاندوفسكي أي باير مونجنا كوغامي ريال كبوندس ليغا حل عرض كان لنا كلنا إيفرتون يا وها أي
raadeerka u saaran ciyaaryahanka CSK Moscow ee reer Croatia ee Nikola ayaa oo 23 sano jir ah oo Moscow naadiga reer Russia ee CSK Moscow weerarka kaga ciyaara ayay Everton bartilmaameedsanayaan iyaga oo doonaya in ciyaaryahankaasi xilaaladka soo aadan ee keenaan Gida Gothenburg ee gobolka Merseyside ku taala waxaana Everton haatan lagu soo waramayaa in 15 milyan oo lacagtii uraha ee u bandhigeen CSK Moscow si ay gacanta ugu soo dhigaan ninka reer Croatia ee Nikola. dhinaca kalena Tottenham daafaca reer Cote d'Ivoire iyo naadiga Spurs ee Tottenhamna Sergio Orena waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku dhow yahay heshiisa oo la gaaro naadiga Paris Saint-Germain. majalada Times in laga leeyahay waxay ku ramaysaa in Sergio Aurelio daafaca reer Ivory Coast oo heshiiska shakhsiga ee la gaaray Paris Saint-Germain ciyaaryahankan ayaa qayb ka ah xidigaha joogtada ee Tottenham waxaana ciyaaryahankani shaac ka qaadan liiga dalka Faransiiska oo ku biiray xilaareedka soo aadana 28 sano jirkaan ayaa heshiiska shakhsiga la gaaray Paris Saint-Germain kuwa oo si weyn suuqa kala wareega ciyaartoyda xidiga ugu raadinaya. ciyaaryahanka reer England ee Tottenham ee Daniel Rose waxa uu qarka u saaray in Watford oo caga dhigto. ciyaaryahanka ayaa dhawaan amaah kaga soo laabtay St James Park naadiga ku ciyaartay Newcastle United oo dib ugu laabtay naadiga Tottenham. ciyaaryahanka haatan oo ku dhawaad Watford kadib markii Spurs ay u sheegeen inuu raadsado koox ciyaareedka soo aadan booska joogtada oo keeli karo. Dani Rose ayaana haatan ku dhaw naadiga heerka labaad ee Championship England ciyaartay Watford inuu caga dhigto. markana dawadayaal waxaan eegaynaa kulamada laga ciyaaray koobka qaramada Yurub oo xalay laga daafuray Gida Olimpico ee caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma. 3 gool iyo waxbana waxa furitaankii guulaha ku raacday wiilasha tababar Roberto Mancini oo maamulay Azzurri idoo goolkii ugu horeeyay qaranka dalka Turkiga si qaldana ee iskaga dhaliyeen ka noqonaya goolkii ugu horeeyay oo tartanka qaramada Yurub furitaankiisa Angola goolasha loo yaqaano la iska dhaliyo idoo Emmanuel ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray Lazio Jeremy Bilana oo barbaray rekoorkii Super Mario Balotelli 14 gool ayuu gaaray ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaro naadiga Lazio iyo qaranka dalka Talyaaniga. kulamo ka tirsanayaan caawa jiro groupka A ayaa la dhameystirayaa 4 galabnimo ama 10 saac oo galabnimona waxa is arki doona Wales iyo Switzerland. Baku Olympic Stadium oo Azerbaijan dhaca ayayna ku wada ciyaarayaan Wales iyo Switzerland. waxaana ka soo muuqan doona kulamadaasi xidiga Premier League si weyn caana kaga Gareth Xhaka oo Switzerland matalaya iyo Sheridan Shaqiri iyo Gareth Bale oo matalaya Wales ayaana kamid xidigaha kulankaasi loo daawanayo. kulanka kale ee kulamada groupka B ka jirana kan ugu weyn waa kan dhaxmari doona Belgium oo idin Hazard oo ka soo muuqanayo iyo ciyaartoyda kale oo Romelu Lukaku ku jiro waxayna la ciyaarayaan Russia. ciyaartan waxay ka dhacaysaa St Petersburg oo dhaca Russia. kulanka kalena waa kana Denmark ee ciyaarayaan iyo Villana ciyaar la daawan doono 7 fiidnimo geeska Afrika. kulanka Belgium iyo Russia ayaa la daawanaya caawa 4 saac oo habeenimo. guud ahaan saaxiibayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Rugby Sports TV aad kala socoteen anigoo Xasan Cabdullaahi barnaamijkii idin soo saar halkaan idin kala socodsiinay farsamadii kaamiradan waxaa iga saaciday Cabdulla Tiirka. dib inta kulmi doono amaan Allah.